الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما بعد درسينا وكيل وطنية الضباط وكم إذا كتابك إتحاف السادة بقصص الصحابة وحرجينا أنه نقول درسي قدام بي كتابك القصة الثالثة والستون قصة اللحدة هي صدحات فضل جعفر بن أبي طالب صحابي قال له يقان جعفر بن أبي طالب فضل يسويه يو هجرته هجرتي إلى الحبشة أرض الحبش وهجرودي جعفر بن أبي طالب وحلال الشيء علي بن أبي طالب والرسول كين أديرك صلى الله عليه وسلم dadka ilaahay dartii inta loo dhibay magaalada mako ciqaabka iyo cuqubada ka socota oo adkeysan waayay oo baxay ardul xabash ayuu kamid ahaa waxa la sheegaa 70 iyo dhowr nin bay ahaayeen iyo dumar tobaneeyo meelahaas ama dhowr iyo 10 haweena can ummi salamata waxa laga wariyay ummi salama waa xaaskii nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay ku jirtaa dadka waqtiga hijrooday oo Jacfar ibn Abi Talib la socda oo ardul xabash aaday laakiin waqtiga ay ardul xabash u baxay xaaskii nabiga ma aysan ahayn sallallahu alayhi wasallam nin Abu Salama la yiraahdaa qabi jiray ninkii markuu dhintayna nabi Muhammad baa guursaday sallallahu alayhi wasallam can ummi salamata waxa laga wariyay ibnati abi umayyah ina abi umayyah ahayd abi umayyihi ibn al-mughira ina mughiraha ابن المغيرة إن مغيرها زوج النبي نبي حاسكي سوحا لغوريا صلى الله عليه وسلم أم سلمة قالت نيتري لما قرتي نزلنا عن دقني أرض الحبشة أرض الحبش وقالوا الآد باحد وين دول كان توبيا التريا جبوت حتى قيبة كاميدا مركا وحوي دول آد باحد وين بوها حدود مركا جبوت حتى كل ويدو oo waxa weeye dhulkaas oo dhan baa waxa la isla oran jiray ardul xabash ila Suudaan wixii xagga warragan wadankan intaas oo dhan ardul xabash baa la isla oran jiray marka waxay leedahay lama nazalna markaan degnay ardul xabashati dhulkii xabashida jaawarna waxaan la darisnay biha magaaladaas ayada ah iyo dhulkaas ayada ah khayra jaarin dariskii ugu khayr badnaa النجاشية بقرك النجاشي لا يراهدو أيان ولا درسني أمنا أمان أيان أهلني على ديننا دينتنا ودين تيدا وان أبد بادنيو وحفر جلنا دين تيدا نلقو مسمين ذات كانوا تغني وعبدنا وان عابدني الله الله تعالى سريه لا نؤذى حالا أن نرد بينه عبادة سلاهي أن عابدينا أن نلقوش ربين ونلقو دبين ولا نسمع أن نمغلين شيئا شيئا نكرهه أن كهصنو كرهسنو فلما قرتي بلغ أقاري ذلك أرنكاس قريش ائتمروا ويشرين وحين قوان صدين أن يبعثوا إني أعدران إلى النجاشي بغركي نجاشي حقي فينا أنك دحدينا رجلين لبنين جلدين أو أضدق أو غلغلفسن وأن يهدوا إني أسوى هدييان للنجاشي بغركي نجاشي هدايا هديوين أو مما كي كمدا يستطرف لحيسيو من متاع مكة مكة علابتي هذا كترسن كفار قريش in badan oo kamid ah dadkan markay hijroonayeen way dhundhunteen laba koox way u soo baxeen meel baa lagu ballamay ka bacdina halkaas laga ambaqaaday dadka noocaan oo saxaabada nabiga ah markay quraysh ka war heshay intay ambabaxeen ardul xabash inay tageen oo halka ay ku kulmeen oo amaan ku heleen aad bay hawsha quraysh uga xumaatay waxay ka daba dirtay laba nin oo quraysh haday isfiiriyeen ay isleeyihiin inaba arxan u gali maysa labadaas ninu raggaas u gali maayaan oo aad u daran oo qalafsan waxay intaa ku dareen boqorka loo socday nimankaani isu dhiibeen boqorkiina hadiyooyin tira badan oo la jecel yahay oo waxyaalaha reemaka laga isticmaalo ah xaggana ardul xabash laga yaaba inay ku yartay ama laga helin ayaa loo sii dhiiba asaga kaliya xataa ma aha
ammaan duulayaashii ciidankiisana waan arki doonaa in hadiyooyin loo sii dhiibay marka waxay yidhahdeen alaamtaa qaada boqorkiina u taga kabacdina waxaad samaysaan hadiyadda siiya nimanka ayagaana ayaan laga hadlin xataa ay horey laga soo dhiibo wa kaana waxaa ahaa min acjabi maa shay kan loogu jacayl badan yaho ya'tiihi u yimaada boqorka minhaa magaalada maka xaggeedana uga yimaada ilayhi asaga u yimaada al-adamu ayuu ahaa hargaha iyo waxyaalaha la magdiyey oo la isticmaalo weelal ahaan loo isticmaalo fa jamacuu waxay u kulmiyeen lahu asaga adaman ayay u kulmiyeen adaman hargo kaiiran ee tiro badan lam yatrukuu kamaysan tegin saxaabadii raggii raadsanayoo gaalada ahaa kama aysan tegin min bataariqatihi ammaanduulayaashiisii bitriiqan hal ammaanduule ilaa ahdow way u soo hadiyeeyeen lahu asaga hadiyatan hadiyad batriiqa waxaa loo yaqaanaa waa hogaamiyaha ciidanka oo weliba xariifka ahoo dagaalka iyo dalka iyo geesinimada iyo waxyaalo badan ku fiican hadday noqoto xagga dal aqoonta dagaalka xirfadda marka ammaanduulayaasha ciidanka ayagana hadiyad bay u soo dhiibeen wa kaana wuxuu ahaa min acjabi maa shay kan loogu jacayl badan yahay oo yaatiihu u yimaada minhaa magaalada xaggo ilayhi boqorkaasna u yimaada al-adamu ayuu ahaa hargaha la magdiyey fa jamacuu way u kulmiyeen lahu asaga adaman harago kaiiran ee tiro badan walam yatrukuu kamaysan tegin min bataariqatihi ammaanduulayaashiisa ciidanka xaggooda xaaluu ka haday bitriiqan hal ammaanduule ilaa ahdow way u soo hadiyeeyeen lahu asaga hadiyatan hadiyad uma bacahuu way soo direen bidaalika hadiyaddaas ayadahay waxay la soo direen cabdallaahi bna abi rabiicata bni lmugiirata almakhzuumi ninka loo yaqaana cabdullaahi ibnu abi rabiica ibni lmugiirati almakhzuumi oo reer bani makhzuum ah iyo wa camar ibni caas ibni waa'il isahami labadaa nin ayay u soo dhiibeen hadiyaddii wa amaruu waxay fareen qurayshi humaa labadaa nin amrahum taladoodiiyo say wax u rabeenna waa loo yeeriyey hadiyaddaana qaada waddadaas mara sidaas u hadla qaabkaasna nimankaa laydinkugu soo gacangeliyo wa qaaluu waxay ku yidhaahdeen qurayshi lahumaa labadii nin idfacaa u dhiiba labadii nin bay la hadlayaan ilaa kulli bitriiqin ammaanduulo kasta hadiyatahu hadiyaddiisa siiya qabla an tukallimuu intiidaan la hadlin annajaashiya boqorka najaashi fiihim saxaabadaa hijrootay arrinkoodana idaan kala hadlin waa khudad iyo kaarta ay rabaan inay degaan intiidaan boqorkaba u tegin oodin hadalka u furin marka hore waxaad soo dishaan baa liyood ka soo takhallustaan qolyaha loo yaqaano bataariqadu ammaanduulada ciidamada ah dilka maxaan ka wadnaa afwaxun xishoo ka dhiga nin walba goonidiisa u laaluusha wax u siiya hadiyad u siiya markay aamusaan oo aad meel ku ogaataan oo ajandihiina aad u sharaxdaan markaa ka bacdina boqorka ku labeeyaale uma qadimuu u hormariya linajaashiyi boqorkii najaashi hadaayaahu hadiyooyinkiisa markaas siiya uma saluuhu waxaad weydiisataan an yuslima inuu dhiibo hum nimankan soo fakaday ee muslimiinta ah ilaykum idinka xaggiina inuu idiin soo dhiibo qabla an yukallimahum intuusan la hadlin maxaad rabtaan iyo maxaad u socoteen iyo maxaa la idinka sheegay iyo wax idnaba ha u leekaatee hadal ayaan la weydin qaalat waxay tidhi fakharajaa labadii nin way soo baxeen faqadimaa waxay u soo galeen cala najaashiyi boqorkii najaashiyi meeshuu ka talinayey walxaal naxnu annaguna cindahu agtiisa aan ku sugannahay bikhayri daartii ugu khayr badnayd iyo dhul ayaan ku sugannaha markaas xagga ammaan ahaan wa khayri jaarin iyo deriskii ugu wanaagsanaa falam yabqa ma harin min bataariqatihi ammaanduulayaashiisii bitriiqun ammaanduula kama harin ilaa dafacaa labadii nin waxay u dhiibeen ilayhi xaggiisa hadiyatahu hadiyaddiisii qabla an yukallimaa intaysan la hadlin annajaashiya najaashi uma qaalaa waxay ku yidhaahdeen labadii nin baa waxay la hadlayaan ammaanduulayaasha ciidanka likulli bitriiqin ammaanduulo kasta iyo hogaamiye kastaoo minhum bataariqadii ka mid ah innahu amar yeeshaaniye qad sabaa waxaa u soo cararay oo u soo fakaday ilaa beledilmeliki boqorka dhulkiisa minna annaga xaggeennana naga soo cararay khilmaanun dhallinyaro sufahaa'u wax magarata ah da'yar wax magarataha naga soo fakaday
inay da'yar yihiin wax magarata yihiinna waxay ku darsadeen faaraquu waxay kaba baxeenba diina qowmihim tolkoodu diintu haysteena waa isaga baxeen walam yadkhuluu maysan gelin fii diinikum idinka diintiinnana maysan soo gelin wajaa'uu waxay la yimaadeen bidiinin diintaasoo mubtadacin la abuurtay oo bidco ah diintaasoo laa nacrifuhu annaga qurayshi aanaan garanayn naxnu annagu walaa antum idinkuna idan garanayn balaaye alla aqoon bay la yimaadeen waqad bacahanaa waxaana soo diray ilalmeliki boqorka xaggiisana noo soo diray fiihim da'yartaan arrinkoodana nala soo diray ashraafu qowmihim ayagaan soo fakaday tolkoodii dadkii madaxdooda ahaa ashraafuulqowm waa dadka madaxda ah odayaal dhaqameedkii iyo salaadiintii iyo waxa weeyaan madaxdii ayaana soo dirto aan ka soconnaa linarudda saan u celinno hum wiilashaan soo fakaday ilayhim qurayshsaan ugu celinno xaggooda fa idaa goortii kallamnaa aan la hadallay almelika boqorkii fiihim dhexdo fa idaa goortii ha ayagii baa hadlaya labadii nin baa waxay wax u sharxayaan badaariqadii iyo ammaanduulayaashii welina maysan gaarin boqorkii najaashi fa idaa kallamnaa markaan la hadallo ammaanduulayaalow markaan la hadallo almelika boqorka fiihim nimankan dhallinyarada arrinkooda aan kala hadallo fa ashiiruu waxaad kula talisaan calayhi boqorka maadaamuu ammaanduulayaashiisii ciidanka aad tihiin bi-an yuslima inuu noo dhiibo hum ayaga ilaynaa xaggeena sababtu waxa weye xoolaan idinka dharjinno xoolaha iyaguna bilaash ma aha walaa yukallimahum inuusan laba hadlinba fa inna qowmahum tolkood ayaa aclaa u sarrayn badan bihim ayaga caynan xagga aragtida garasho hadday noqoto tolkood baa kaa yaqaana wa aclamu ayaga u ogaal badan bimaa waxa caabuu ay ku cambaareeyeen calayhim dushooda fa qaaluu waxay yidhaahdeen lahumaa faqaaluu yaa odhanaya waa badaariqadii ammaanduuliyaashii lahumaa labadii nin ee ergada ahay ee quraysh ka socotay waxay ku yidhaahdeen nacam haa haye waan samaynaynaa baa le maxaa nacamta ka keenay jeebabka u buuxa waa abukaatayaal lacag baa la siiyey waa wada faraxsan yihiin nugu hallee baa leh uma innahumaa labadoodii waa labadii ninoo la soo diray qarrabaa waxay soo dhoweeyeen hadaayaahum hadyooyinkoodii ila najaashiyi boqorkii najaashi bay u soo dhoweeyeen faqabila wuu ka aqbalay haa hadyaddii minhumaa labadoodii waa ka guddooma markuu ka guddoomay uma kallamaahu way la hadleen faqaalaa waxay ku yidhaahdeen lahu asaga ayuhalmeliku boqorow innahu amariye sha'niye qad sabaa waxaa u soo cararay ilaa beledika dhulkaaga midna annaga xaggeennana ka soo cararay khilmaanun wiilal yaryar sufahaa'u ee wax magarata ah kuwaasoo faaraquu ka baxay diina qowmihim tolkood diintoodii walam yadkhuluu aan soo gelin fii diinika diintaadana maysan soo gelin labadaa keliya ma ahane wajaa'uu waxay la yimaadeen bidiinin diin mubtadacin bidco ahoo la bidcaystay diintaasoo laa nacrifuhu aanaan garanayn naxnu annaga iyo walaa anta adugu midna waqad bacahanaa waxaana soo diray ilayka adiga boqorkaa xaggaaga fiihim nimankan arrinkooda dhexdii ashraafu qowmihim tolkooda dadkii sharafta lahaa iyo madaxweyntii oo min aabaa'ihim aabbayaashood ka mid ah wa acmaamihim adeeradood iyo wa cashaa'irihim xigtadooda iyo qoyskoodii waxayna nala soo direen litarudda inaad celisid hum ayaga ilayhim qurayshtii ay ka yimaadeen inaad u celisid xaggooda fahum ayaga quraysha aclaa u sarrayn badan bihim ayaga caynan xagga aragtida ayagaa u aragti dheeroo u xog ogaalsan wa aclamu ayagaa u xog ogaalsan bimaa waxa caabuu ay ku cambaareeyeen calayhim dushooda oo wacaatabuuhum ay ku canaanteen fiih dhexdii qaalat waxay tidhi walam yakun ma ahayn shay-un shay abqada mid laga nicib yahay oo looga nicay badan yahay ilaa cabdilaahi bni rabiicata iyo wa camar ibni alcaas min an yasmaca inuu dhagaysto annajaashiyu najaashi kalaamahum nimanka muslimiinta hadalkooda labadaa ninoo la soo diray waxay arkaan waxay ugu nibcaayeen ninka boqorkaahi inuu yidhahda nimanka horta aan waraysto sababtoo ah nimankan la raadinaya iyo kuwa raadinaya waa is yaqaanaa nimankaana waxaa ka mid a nin jacfar ibnu abi aalib la yidhaahdo oo rasuulka qaraabadiisa ah kartidiisa iyo aftahanimadiisa iyo waxa weeyaan raganimadooda waa la is ogyaha
hadday gari bilaabato la garamo waxay ogyiin marka inay ku fungormayaan meesha oo ku hungoobayaan waxay rabaan marka gashaanti aamuska lagu meheriya ayagoo sidooda u cabursan inuu boqorku yiraahdo hadiyadana waa idinka gudoomay ayagana hala tarxiilo socda sida in la yiraahdo aad bay u nibcaayeen nimanka in la wareysta marka faqaalat waxay yiraahdeen batariqatuhu la taliyashiisi iyo ciidamadiisi amaanduulayaashoodii xawlahu hareerihiisa sadaquu rumbay sheegeen amaanduulayaashii baa hadlaya yaa ka hadlinaya lacag waa la dhaqaaleeyay jeebabka u buuxa hargaal la siiyey marka rumbay sheegeen ayuha almaliku boqorow qawmuhum tolkood ayaa aclaa u sarrayn badan bihim ayaga caynan xagga aragtida wa aclamuu ayaga u ogaal badan bimaa waxa caabuu ay ku ceebeeyeen calayhim dushooda fa aslimhum u dhiib hum ayaga oo reetolkood ah ilayhimaa labadaa nina xaggooda maya fa aslim dhiib hum nimankan ilayhimaa labadaa nina xaggooda u dhiib falyaruddaahum labadaa nina haa celiyeen ilaa bilaadihim dhulkoodii iyo wa qowmihim reetolkood isku dhul lama nihin isku tol lama nihin balaayo soo fakatay oo aan diin xataa haysan weeyaane oo bala la timid celi qaala halkaa ku qoran laakiin nusakda qayb baa waxay qoran asalka ahayd qaalat lianna qisada umu salama warinaysa qaalat umu salama waxay tiri faqadiba wuu xanaaqay annajaashiyu boqorkii najaashi waa xanaaqay uma qaala wuxuu yidhi laa hayamlah laadu waa naafiya laa maya haaduna waa xarfu tanbiih yamillaahuna aymullaahi weeyaan aymullaahi bay qasamay dhaartaydu ahaatay ilaahay baan ku dhaartay maya idan haddaba laa uslimu ma dhiibayo hum ayaga ilayhimaa labadoodan nin u dhiibi maayo raggaas walaa ukaadu la igu dhagri maayo la igu shirqooli maayo qowman qolyahaasoo jaawaruunii ila darsay oo wanazaluu soo degay bilaadii dhulkayga oo wakhtaaruunii iga doortay calaa man dowladaha iyo boqorrada siwaaya aniga iga soo haray anay door isoo bideen dowlado badan baa caalamka ka dhisan dad badan baa jira dalkaygay dalalka ka doorteen madaxda iyo boqortooyadana tayday ka doorteen anay daris ila yihiin walaana kuwaas dhiibahayn bi ilaahay baan ku dhaartay inaana dhiibaynin ilaa goorma xataa adcuuhum ilaa aan uga yeera bi oo fa as'alahum aan ka weydiiyo maa yaquulu waxay ku andacoonayaan oo ilayyihiin haadaani labadaa nin fii amrihim nimanka arrinkooda waan waraysanayaa sidaan idinkaba idiin waraysto oo idiin dhegaystay baan ayagana u dhegaysanaya waa intay nibcaayeen soomaha labadan ergey maba rabinba nimankan in laga hadlayaba wuxuu yidhi fa in kaanuu hadday ahaadaan kamaa yaquulaani labadaa ninoo raadinaysa sida ay leeyihiin aslamtu waan dhiibayaa hum muslimiintan ilayhimaa labadaa nin baan u dhiibayaa wa raddatuhum waan u celinayaa ilaa qowmihim reetolkood wa in kaanuu hadday ahaadaan calaa kayri daalika arrinkaa waxaan ahayn kuwo ku sugan oo laga been sheegayo manactuhum waan u diidayaa hum nimankaa muslimiinta ah minhumaa labadaan raadinaysaan u diidayaa waxaan la idiin dhiibi maayo wa axsantu waan hagaajinayaa jiwaarahum dariskooda maa muddada jaawaruuna ay ila dirsayaan intay ila joogaanoo daris ila yihiinna waan hagaajin qaalat waxay tidhi uma arsala boqorkii waa u cidiray ilaa asxaabi rasuulillaahi rasuulka alle asxaabtii sala allahu calayhi wasalam fadacaahum wuu yeeray wuxuu yidhi imaada falamaa jaa'a markuu u yimid hum muslimiintii rasuuluhu najaashi qofkii uu soo diray rasuuluhu rasuulka alla maaha rasuul waa qofkii la diro najaashi qofkii uu soo diray oo yidhi nimankaa iigu soo yeer markuu u yimid ijtamacuu way kulmeen oo shir jaraa'id bay qabsadeen uma qaala wuxuu yidhi bacduhum qaarkood saxaabadii baa isla hadlaya libacdin qaarkii kaleu wuxuu ku yidhi maa maxay baa taquuluuna ka leedihiin lirajuli ninka maa taquuluuna maxaad ku dhahaysaan lirajuli ninka idaa ji'tumuuhu haddaad u tagtaan war waa la inoo yeera waana la ina raacdaysanayaayo waa la ina raadinayaa haddii marka aynu hor fadhiisanno waraysi laynala yeesho maxaynu ku jawaabaynaa qaaluu waxay yidhaahdeen naquulu waxaan odhanaynaa wallaahi ilaahay baan ku dhaarannaye maa wixii callamanaa uuna baray oo wa amaranaa uuna faray bihi maagaba nebiyunaa nebigeennu sala allahu calayhi wasalam kaa'inu wuu ahaan fii daalika arrinkaa dhexdiisa maa huwa kaa'inu wax kasta wixii kasoo ahaanaya wixii nebi moxamed ina baray oo diin ahaa iyo wuxuu ina faray hal xabbo ka leexan mayno waxaan kaloo sheegaynaa wax allaala waxa nebigeennu sheegay inay siduu u sheegay u dhacayaanoo xaq yihiin
فلما قرتي جاءوا أيوي مادين هو أصغي بقركي وقد دعوا يري النجاشي ننكي النجاشي أها أساقفته أيو يري وذا دديسي علومديسي أساقفة وحلو يقانا ودين كريستان كرج قوة وينا ومركا أقون يهنك أها أيو يري فنشروا وحي كلبحيان والله سوى كلبحين مصاحفهم كتابضودي حوله بقر كهريره صحيفته وراقه إنجيل أي كقرنيد أي الله سوى كلبحين مركا وعلومدي كوي هرانا وحي أهين حق الدولة إيا أمان دوله دي كوانا وحي الدين تقابل سنويان سألهم هو يدي فقال وحي يري ورئيسي بكوب العرب ماشا وحا فديا لبدي نينو الله صادر عمر بن عاصي ساحب كيرا ماشا فديا مركو هذا الذي كوب العرب وحي يري ما هذا كان محويها الدين كأه الذي الدين كاسو فارغتم أتكغبحدين فيه دحديس قومكم تلكين ولم تدخلوا إذا كجل في دين أحد غف دينتي ومن هذه الأمم الدين الدون كان أمدها كشر الدين هذا كمده وحمانت الدون كدين كشرته هل دين أو كمده ودميه شقين يرميدا قادا تيني ركتكت النبي يقول هذا مركز سيد عصبيد صلى الله عليه وسلم قالت وحي تري فكان وحوها الذي كي كلم الله يهب قرق أفهيين كيجاها جعفر بن أبي طالب afhayeenkii dadka muslimiinta 7 iyo dhowr nin oo rag ah iyo dhowr iyo 10 haween ah afhayeenkoodii asagu noqdo faqala wuxuu ku yiri lahu boqorkii ayuhal maliku boqorow meeshu hadalka ka bilaabay soo ma jeedid wargaal xunaho waxa kristaan waxba boqor oran mayne warow nin oo muusan oran wala soo dhaweeyay wala ikraamay wala sharfay magangelyo siyaasadeed baa la siiyay meeshaasi ku nool yihiin diintoodii bay xor u noqdeen ninkana waa boqor madaxweyne ah inaad madaxweyne u qoori weydid markaasna inta uu ku qooray arrinkaas sax ma marka si wanaagsan oo sharaf leh meeshii ku haboonayd ayuu mara ayuhal maliku boqorow kunna waxaan ahayn qawman dad ahla jaahiliyatin oo jaahiliye ehelkeedu oo jaahiliin nacbudu waxaan caabudi jirnay al asnaama sanamyadan caabudi jirnay iyo dhagaxaanta ninka uu la hadlaya waa nin kristaan oo diintii nabi ciise haysta nin dhagax iyo waxaas in la caabudo wax u qabana ma aha diintii hore nabi ciise ku dhagan yahay marka wuxuu yiri kow horta dad jaahiliin aan ahayn labo jahliga waxa kamid aha dhagaxaanta iyo asnaamtan caabudi jirnay wanaakulu waxaan cuni jirnay almaytata bakhtiga ninka uu la hadlaya waa kristaankuna waxbay gowracdaan kuwaana intay wax baktiyaan kufaar quraysh bay iska cuni jireen wanaati waxaan la iimaan jirnay alfawaahisha xumaatooyinkana waa la iimaan jirnay nooci doonay ha noqoto ونقطع وحن جوين شرني الأرحام قرابتنا وان جوين شرني ونسيء وان هلين شرو حمين شرني الجوار درسك ما حمان عام بكون نقول درسك أدبا نودي بشرني يأكل وعني شري القوي متك حوق لو منا نجمده الضعيف كتاك تدرن أيو عني شري فكنا وحنهن على ذلك أرنك أقواك السجن بنهين به سيدا سنهين شر وهو شيء دور قضب إلى شن قضب والشيء كو إني أهين جاهلين أسنام تعابده لبا إني بختك عني شرين صدق إني فاحشة يحمها الإيمان شرين يزنده أفر قرابده إني جوين شرين شن إني دريس كحمين شرين لحنا وحي والشيء إني سمين شرين مدمتكو كحوق بدن يهم مقونين شرو دين شر ولا إسبرك عين شري ولا إسلين شري سيدا سلا سمين شر نك حوق لا حبك تقاست سيدا سنة أهين شر نبي مرك وحب قدام يهرت أنت اللي جارين بأرمي سيكلته ضدك أي كسر عرين دين أهان يضل ما أهان ماشي تاجين وقت جاس ببهرت قدام يجيب حتى بعث إلى أصادري الله ألا إلينا حقنا رسول إلى إلهي الرسول الله صادري رسول كاسو منا أنك نجمد رسول كاسو نعرف أن قرنا إن نسبه أبتركيسه يو صدقه رنتي يو أمانته أمانديسه يو عفافه دورسوني هل كان الرسول كإلهي بكشر حي هوشيسي كوان لا يقانو هذين نقطة نصب هذين نقطة رن بين لجوم يقان هذين نقطة أمانة روح وخيانة معها دورسوني هذين نقطة وروح عفيف ودورسونه حرام ترنك دورسده رسول كاس إلهي نصدره رسول كنا لا صدره فدعانا وحو نوجو ياري إلى الله ألا حقيسه تعالى سريه لنوحده إلهي سان أكلي الله وهو نعبده إلهي أن عابدنه وهو نخلع أن ودح بحنو سيبنه ما وحي كنا أنا هين نعبد كوي عابد نحن ونجي وآباؤنا أبياشين
min duunihi ilaahay sukadi oo maxaad ilaahay sukadi caabudi jirteen min alxijaarati dhagaxaan iyo wal awthaani sanamyaal awthaanta iyo asnaamtu waa isku mid wa amara wuxuuna faray bisidqi alxadiidi sheekada inaan ka run sheegno wa adaa'i alamaanati amaanada gudashadeeda wa silati araximi qaraabada xiriirinteeda wa xusni aljiwaari darisnimo wanaag walkafi inaan ka reebtoono canilmaxaarimi ilaahay wuxuu naga xarimay iyo waddimaa'i dhiigaga xaqdarrada lagu daadinayo wa nahaanaa wuxuu naga reebay canilfawaaxishi waxyaalaha liiliito xumaha ah wa qowli zuuri iyo hadalka beenta ah wa akli maalilyatiimi agoonka xoolihiisoo la cuno wa qadfi lmuxsanati gabadha dhowrseen ee la qadfoo lacayoo la yidhahda zaaniyad baa taha wa amaranaa wuxuuna faray an nacbudallaha laynaan caabudna waxdahu keliya xaaluu yahay laa shariika cid wax la wadaagtaana laa nushrika anaan u shariig yeelin bihi alla shay-an waxba anaan la wadaajin cidna wa amaranaa wuxuuna faray bisalaati tukasho iyo wazakaati zaka bixin iyo wasiyaami soon bal intuu qodob sheegaya erey aad u wanaagsan buu ku hadlayaa towxiidkii buu ka hadlayaa risaalada nebi maxamed buu ka hadlayaa diinta nebi maxamed nuxurkeeda iyo waxay xambaarsantaho la timid buu ka hadlayaa dhanna dulmigii bay diintaanoo la dagaalamaysaayoo diidantaha hadday tahay asnaam iyo dhagaxaan la caabudo hadday tahay dadka agoonta xoolahoodoo la cuno hadday tahay been la sheego hadday tahay zinadii hadday tahay dhiigoo xaqdarro lagu daadiyo hadday tahay gabdhaha muslimaadka hor dhowrsan oo waxa weeyaan zina lagu sheego kulligood diinta nebi maxamed way reebta waxaas waxyaalahay faraysa qaraabo xiriirinta darisnimo wanaagga runtoo la sheego ammaanada ilaahay keligii oo la caabudo salaada soonka zakada waxyaalahan noola yimid bi qaalat waxay tidhi facaddada wuu tiriyey jacfar calayhi boqorka dushiisa umuura alislaami islaamka arrimihiisii ayuu u tiriyey wuxuu yidhi fasadaqnaahu waan rumayna jacfar baa hadlaya nebigii baan rumayna wa aamanaa waan rumaynay bihi asaga waattabacnaahu waan raacnay calaa maa shaygii jaa'a uu la yimid bihi maagaba facabadna allaha ilaahay baan caabudnay waxdahu keligii falam nushrik lamaanaan wadaajin bihi alla shay-an waxba wa xaramnaa waxaan iska fogaynaa maa wixii xurrimana laka xarimay calaynaa korkeenna wa axlalnaa waxaan bannaysannay maa wixii axalla uu noo banneeyey lana annaga wixii ilaahay naga xarimayna waa ka fogaanay wixii ilaahay noo xalaaleeyana waa xalaashanay facadaa waxaa nugu xadgudbay calaynaa dusheenna qowmunaa reetolkeen facadabuunaa wayna cadaabeen fafatanuunaa wayna fitneeyeenoo can diininaa diinteenni bay naga fitneeyeen liyarudduunaa say noogu celiyaan ilaa cibaadati alawthaani asnaamtoo la caabudo min cibaadatiillaahi ilahay cibaadadiisana ay naga celiyaan bi boqorow saasay noo wadaan ilaahay keligii baan hadda caabudnaa laakiin waxay rabaan intana ciqaabaan oo na dilaan oo na jirrabaan inay noo celiyaan inaan geedaha iyo timirta caabudno wa an nastaxilla inaan bannaysanno maa wixii kunaan ahayn nastaxillu kuwii xalaashada oo min alkhabaa'ifi waxyaalaha xunxun ah waxyaalaha xunxun oo ay xalaashadeen oo zinada iyo dhiigoo la daadiya iyo agoonta xoolaheedoo la qaatay iyo ammaano darrada iyo derisxumada iyo wax ayagii bay rabaan inay noo celiyaan falammaa goortii qaharuunaa ayna khasbeen oo na maquuniyeen oo wadalamuunaa ayna dulmiyeen oo washaquu ayna dhibeen calaynaa dusheenna oo waxaaluu ayna kala dhex galeen baynanaa annaga iyo wa bayna diininaa diinteenna dhexdeeda ay isu kaaya diideen kharajnaa boqorow waan soo baxnay ilaa beledika dhulkaaga xaggiisa ayaan u soo baxnay wakhtarnaaka waan ku doorannay calaa man dadka siwaaka kaa soo haray adi un baan ku dooranna wa raqibnaa waxaan jeclaannay fii jiwaarika la dersidaada wa rajownaa waxaan rajaynaynay allaa nudlama inaanaan nala dulmin cindaka agtaada ayuhalmaliku boqor waa loo yar naxriir ah oo weliba haddana muslimiintii difaacayay alla maxay muslimiinta maantayto arlada gaalada ku nool oo aqaliyaadka ninkaanoo kale u baahan yihiin wanaagsan ee aan ahayn nin siduu kuwii bitaariqadaha marka jeebkii loo buuxiyey yidhaha sadaquu ayuhalmalik run bay sheegeen boqorow laakiin nin naxaya oo risaalo xambaarsan oo diinta ilaahay garanaya waxa aad wax looga xumaada ah waxaan ayaama dhoweyta dhegaysoon mutaabacaynahayay kufsi ka dhacay puntland ee looyaro loo qabtay gabar yaroo la kufsaday waxaan aad u qariibsaday marka looyaradaasu qaabkay u hadlayaan baan aad u qariibsaday waxaan is leeyahay war maxay waxaan isaga dayn waayeen
inuu qofka qof loo qabto qareen oo u hadla ma xuma ceebna ma aha laakiin qof loo yaro qaabku u hadlayo waa inuu qaabkan kale wax la mid ah noqdo waa inuu san caytamin waxa uu qofkan ku bushinaya cadaynta qofkan uu keenay waxa waa inuu ka hadlo laakiin wax aad moodid waxa weeye ciyaalku xataa aysan ku sheekaysan mararka qaarkood wax laga waswisa ah bay rabaan inay wax ku difaacaan arrinkaas kala sax ma ah hadaad wax difaacay sidoo loo yar tahay in dilaaqaagu waa inuu yahay diinta ilaahay diinta ilaahay wax ka garanaysi maxay mas'aladan diinta ka qabtaa inaad qof horta loo yar u noqotid inaad qof difaacdid maxay diintu ka qabtaa sax loo yar u noqo haday diinta ilaahay waxaan banaynayso hadalkaagu waa inuu noqdo hadal ku beeskaraysan sharciga islaamka laakiin wax uu iska warwareego waxa weeyaan boor isku qarin ah waxa sax ma arrinkaas ma inaan leeyahay in loo yar la qabtaa khaldanayd laakiin waxaan ka hadlayaa hadalka qaabka loo yarada soo dhigayaan sax ma qaabka wax u bushinayaan sax ma waa inaad tiraahdid war waqtigan aad wax soo qabateen tusaale ahaan waqtigan aad wax sheegteen laakiin waqtigaas hebel meesha ma joogin hebel meesha ma joog wax kale wax la fahmi karo laakiin heblu la sheekaysan jiray muxuu tan ku falhayaa loo yar dhanoo ku hadlaaya war qofku hadduu iimaanka ka tago hebel iyo hebel caabinayso celinaysa waxaasoo kale sax ma wax dad la hor yimaado wax dawladu tabisana ma aha iyo waxa weeyaan idaacado waa wax khaldan waxaasoo kaleeto in ummadda laga baraarujiyaan ay sax tahay weey sax tahay hawshaasi waxaan kaloo aad u qareebsadaa mid baa wuxuu damca inuu kuwaas radiyo markaasuu ka daro dib la sameeyay markaasuu wuxuu sameeyay wuxuu leeyahay culumadii waa waasheenay cadaqaatiyaal bay noqdeenay waxa wax ka qaadanaya lama arko dadkay ka dawarsada waxa weeyaan wal xagta ka aruursadaanay wuxuu leeyahay qofka maanta inta dhibka aanu haysto oo dumarka ah xataa waxa u banaan buu leeyahay xaq u leedahay inay diinta iska tagto diin kala qaadatay waa muslim Soomaali oo YouTube ka xoga laga yaabo inuu arsaaq ka raasanayo laakiin halkaas ka gashay marka waa dulmi lagu burburinayo arrinkaas sax ma aha qofka muslimka cadaalad sameeyo qofkan waxa isku qaldan yahay waxaana waa ku saxan yahay xuduudaada ku ekow طيب marka loo yarka noocaas oo kale ta way muhiim waxa kale oo muhiim oo meesha ka muuqata muslimiinta yar oo aqaliyaadka ah dal gaalana ku nool madluumiinta oo wadankoodii lagu soo dulmiyay oo ka soo cararo ka soo qaxay midnimadooda iyo qaabkii u midoobeenna waa muhiim inaynu ku dayana inaguna dal baa lagu nool yahay dal gaalo weeyaan waxa way aqaliyaad ku tahay mana mideysnin qabaa'ilkii ma mideysna reehbel wacdalaan aan hoos iimaanaynin loo yir horta waa qolama waa reehbel ma jirto mashaayikhdiina aafadaas iyo kuwa lamid ah haysata qaybo badan oo kamid ah oo ururo iyo kooxo war nimankan aad la nooshahay ayagu hal il kaliya ku fiirinayaan waxa tahay muslim aduguna waa inaad hal ila kaliya yeelatido aad muslim noqotid waxa aad isku ku kala aragtid duwanaha aniga adugu iyo waxa ummadda aynu la noolnahay waa kala laba waa wax aad u kala fog weey maya هذا كهر باودات سلمان عودة ليرهذا ويحو قبت محاضرة ليرهذا 100% waa maxay waxa caalamka maanta ka shaqeysay yiri boqolkiiba boqol waxaan qaba ila qab hadii kale ina kala laakiin ma jirto yiri miisaan war inta boqolkiiba konton soo isku waafaqsanaan ha intaas aan iska waafaqsanahay kaliya aan ka wada tacaawuno ka wada shaqeyno inaynu wax barano oo ilmahana wax barro oo inuu midowno oo aan dulmiga iska ilaalino oo aan qasharka isli ka aruurino soo masaalix caam ah war intaas aynu ka midaysanahay inuu ka wada shaqeyno hadaan iraan maya horta ninka hawshan hogaaminaya ayuu reehbel weey nama soo galaan ugu danaysanaya marka arrinkaas dulmi weey طيب hala yaabi ninkan inuu sida u hadlo sida wax u qurxiyo asagoo caytamin asagoo dagaalamin meel wuxuu ka soo jeedaa macdan aad u wanaagsan qoys wanaagsan buu ka dhashay waxa nabi maxamed sheegay kama fi sahih inuu inta la hadlay nabigu Jaafar ku yiri ashbahta khalqi wa khuluqi laba meelood baa wadiga egtahay Jaafarow qaabka iyo sida ilaahi ii sameeyay aniga nabi maxamed ah waa shabahday wadiga egtahay khuluqa iyo dabeecadana wadiga shabahda wadiga egtahay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam mar haduu khuluqi iyo dabeecadii nabi maxamed leeyahay nabi maxamed inuu dadka qanciyo ilaahi waa u fududeeyay subhanahu jawaabul kalim balasi قالت وحي تري فقال النجاشي نجاشي با وحو كو يري له جعفر هل معك لجيران كاغا ما هذا مما وحا جاء أوليمد به ما غبا محمد عن الله ألا حقي سنة وكليمد من شيء وح مكاه حسابي وحا الله ده النبي قاسا نوليمد وحا أتكحف دي سنته وكقرنيسي مجرى نودو الآخرين كرتي قالت وحي تري فقال جعفر با وحو كو يري له بغركي نعمها والله يردين إلهي قرنيه لكن لو يرسل له استجدان قانون أو آيات قرآن عن قرنين وحويا وحلينية صح معه لو يركو وإنه هيستوى حيالها ضروريات كهدين إله كميته لكن الحاد كبدنا يا مانتك تأد بدنا يد مدة إله إنه نحرسته معهن نبقى يشري الله يران صاحبنا هاي
hindiyu kaga soo baxay jaamacad looyarnimo ku diyaari marka wuxuu leeyahay da'yar badan oo Soomaaliya oo aan jaamacadaha isla dhigan jirro barnaamijka aan wada diyaarin jirnay biir diinta islaamku waa isaga tageen kulli hatta inay ka tageen diinka la qaateen waa ilhaad baa ku dhacay kulligood ilhaad baa ku dhacay qayb badan oo kamid ilaahay inuu naxariistay maahan sida awgeed qofka looyarka ahi miisaan sharciga uu ka duula waa inuu leeyahay marka wuxuu yiri waan garan faqala najaashi baa wuxuu ku yiri lahu Ja'far faqra'uhu akhri alayya dushayda faqara wuxuu akhriya Ja'far alayhi boqorka dushiisi sadran bilowga min kaafha ya aynsa suuradan kaafha ya leeyahay waxayba ka hadlaysaa nabi ciise iyo hooyadii maryam bay ka hadlaysaa qayb badan oo kamid waxay ka hadlaysaa anbiyadii ilaahi subhanahu wa ta'ala oo ka horeeyay asaga wuxuu doortay marka ikhtiyaar aad u wanaagsan oo maadaama ninkan uu kristaan yahay suuradaasuna nabigii ninkan uu rumaysnaa iyo ay ka hadlayso hooyadiis iyo anbiyadii uu ka soo jeeday iyo ilaahi ayadu u doora waa ikhtiyaar ayaduna aad u wanaagsan oo muhiim tahay munaasabadka noocaas oo kale ay qofka muslimka inuu kaga faa'iideysto قالت waxay tiri fabaka wuu ooyay wallahi ilaahi baan ku dhaartay an najaashi ninki najaashi hawa ooyay boqorkii hatta akhdala illa uu qooyay lixyatahu garkii uu lahaaba ilin baa qoysayba ma kaligiisba wabakat way ooyday asaqifatuhu aqoonyahankiisii iyo culumadiisiina way ooyeen hatta akhdalu illa ay qooyeen masaaxifahum kutubtoodii injiilo ay haysteen ila ay qooyeen laakiin bataariqada ayaga oo hin laga ma hayo jeebabka u buuxa sadaqu ayuhal malik bay ku hayaan awalba waxay iska aheen caada qaatayaal hadiyad baa la keenay waa la aamusiyay qofka muslimka ah dhuunigaasu inuu hogaamiyo wax khaldan weeyaan manfac intii lagu tuhmi lahaa oo la oran lahaa hebel waa dhuuni qaata iyo caada qaata iyo haduu xogaa helo shibu oranayaayo mar hadii taa lagu sheego ceeb kuma dhimana wax ceeb ku dhima lama arko طيب حين سمعوا مركي مقلين ما وحي تلاو أخري عليهم دشوض ثم قال النجاشي بوحير إن هذا الدين كان واخرين والذي كي جاء أوليمت به أسقب موسى نبي موسى لا يخرج وحو كسو بحيا من مشكات ضاقات واحدة إكلئ هل ضاقات إني كسو ضبحين بماشا كمغتب معنا هل ميل بكو ذي مادين انطلقا لبضي نبو الله الله عمر بن عاصي صاحبك وحو كيري السعودة فوالله إلهي بان كل أرتيه لا أسلم إذين ديب ما يهم أيجا إليكم إذين كأبدا ولي حتى إذين ديب ما يبي حتى ما أنت تكتان إن هديات كلا سوق على نسان صون غنيسان أبدا الآبدين ولا إذين ديبين السعودي به ولا أكاد الله يقول لك ما يرجع الله يقصر ما يه قالت أم سلمة وحيتري رضي الله عنها فلما خرجنا مركان بحري من عنده أكتيسه قلنا لفصحي قال عمر بن عاصوحير والله إلهي بان كدارته لآتينه ونو إيمان يا يو إيمان غدا بري أعيبهم حالان عيبين يو عنده أكتيس ثم أستأصل وان كتشرد قوين يا به أسقى خضراءهم مدن مضى ضئيو متتوش ودواتر تير يا به حوك وضع وحو يرنيه ما أنت ودوشي داي والإن يقول يسونينك جعفرها واسكدوا بريتي بقر كي أساقي فديسي ujeedadii aan u nimidna kumaynaan guulaysan ballanse waxaan ku qaadayaa inaan saa kaga harine bari ayaan dhan kale kaga imaan boqorkan ku dirayaa oo ceebtooda iyo xumahooda banaanka soo dhigayaa boqorku intuu xanaaqo isticaalku waa maxay waa geedka xididada loo siibo marka xididadu inta u siibo buu muuqooda oo meesha ka baabiinaya qaalat waxay tiri faqala abdullah ibn abi rabi'ata wuxuu ku yiri له عمر بن عاص لبدي قال ايغبا اسكلافاي وكان عبد الله وحوها اتقر رجلين لبدن مدكا نو دمرين بدن او نو عبسي بدن فينا دخدينا لبنين oo waxay ahaayeen adag laakiin labadooda waxa noo dabacsanaa bay tiri عبد الله بن ابي ربيعه عبد الله baa markaa wuxuu kiri la tafcalha samayni عمر بن عاص hawshaha samayn fa inna lahum nimankan waxa u sugnaaday arhaman qarabo nimanku qaraabadeen weey hadafkuna wuxuu ahaa in la inagu soo wareejiyo aan reetolkood ku wareejino la xirxiro laakiin hadda inta boqorkan ku dirtid oo cagta mariyo baabeeyo tii qaraabo goys baynu noqonaynaa wa in kaanu haba ahaadeen qad khalafuna kuwana khilaafay oo nimanku haba ina khilaafeen isku qays baynu nahay nimanka ninka ku baabeeyni qaala wuxuu yiri wallahi amar waadiid qaala amar wuxuu wallahi ilaahi baan ku dhaartay
la ukhbiranna waxaan u sheegayaa hu boqorka annahum nimankan muslimiinta ahi yazcumuuna inay ku andacoonayaan anna ciisa bna maryama ciisihii ina maryama ahaa cabdun addoon inuu yahay shib ii dhibi anaa aqan meeshaan ka gelayay waxaan ku leeyahay buu yidhi ciise ilaah iyo wiil ilaah midna kama aaminsanee addoon miskiina inuu yahay ka aaminsan yihiin qaalat waxay tidhi uma qadaa wuu soo kallahay camar calayhi boqorkiibuu ku soo kallahay alqada berri geed gaaban iyo geed dheerba wuxuu u fuulayaa gaal inuu diintaada kaa inxiraafiyo hadduusan ku inxiraafinayna uu ku dhibo faqaala wuxuu ku yidhi lahu boqorkii ayuha almeliku boqorow innahum nimankaad soo dhowaysatay ayagu yaquuluuna waxay leeyihiin fii ciisa bni maryama ciisihii ina maryamaha qowlan hadal cadiiman ee weyn bal ayaan afka lasoo marin karin bay ku hayaan fa arsil u cidir ilayhim ayaga xaggooda fasal weydiihum ayaga camaa waxa yaquuluuna ay leeyihiin fiihi ibnu maryam arrinkiis u yeerbi nimankaa waxay hayaan warkama haysidi qaalat ummu salama waxay tidhi fa arsala wuu u cidiray boqorkii ilayhi muslimiintii yas'aluhum xaalo uu weydiinaya canhu nebi ciise xaggi qaalat waxay tidhi walam yanzil naguma soo degin binaa annaga miluhaa iyadoo kaleeto murugada maalinkaa isugu kaaya timid weligayana ma qaban bay tiri war hadda maxaan samaynaa dadka qaar baa nebi ciise waxay ka aaminsan yihiin ilaah inuu yahay war xaggee wax ka bilownaa war waa layna hayaa fajtamaca alqowmu qolihii way kulmeen shir kalaa la qabto horeyna soo lama soo shirin muslimiintu qaabka hadday u midoobaan oo dhacdadii iyo xaadiثadii kastoo timaado war maxaa inaga aadan oo laga tashado la isaga yimaado wax badan baa u hirgalayo u qabsoomay laakiin nin walba hadduu goonidiisa u natoxsado farifool ma dhaqdo noqon far kaliya fool ma dhaqdo faqaala bacduhum gabalkoodu waxay yiraahdeen li bacdin gabalka kale maada maxayba taquluuna leedihiin fi ciisa ciise idaa sa'alakum boqorku hadduu idin weydiiyo canhu ciise xaggiisa maxaad ku jawaabaysaan waa in jawaabtaadu ku diyaarsan tahay qaaluu waxay yidhahdeen naquulu waxaan leenahay wallaahi ilaahay baan ku dhaaranay fiihi nebi ciise arrinkiisa maa wixii qaala allaahu alla uu ka yidhi iyo wamaa wixii jaa'a uu la yimid bihi maagaba nebiyuna nebigeennu sala alla alayhi wasalam kaa'inan xaaluu ahaanaya fii daalika arrinkaas maa wixii huwa asuguba kaa'inu ahaanaya wixii ka dhici lahaa ka dhiceen hal xabba ku khilaafi mayno alla iyo rasuulkiisu nebi ciise waxay ka sheegeen falamaa goortii dakhaluu ay u soo galeen calayhi boqorkii qaala wuxuu ku yidhi lahum ayaga maa maxay baa taquuluuna ka leedihiin fii ciisa bni maryama ciisihina maryama aha qaala wuxuu ku yidhi lahu asaga jacfar ibnu abi aalib naquulu waxaan leenahay fiihi nebi ciise alladii kiibaan ka leenahay jaa'a uu la yimid bihi asaga nebiyunaa nebigeennu sala allahu calayhi wasalam huwa nebiyullaahi ciise cabdullaahi ilaahay addoonkiisii weeye camar ibnu caas asigu wuxuu yidhi waxaan odhanaynaa cabdun waa makri wuxuu ahaa camar ibn caas duhaatul carab buu ku jiri jiray ragga carbeed nimanka ugu maskax badan oo ugu dhakri badan buu ku jiray uuna islaam waagi dambe nin wanaagsan buu noqday marka cabdun kaliya ku gaabsada cabdun waa adoon soo ma laakiin jacfar wuxuu yidhi cabdullaahi ilaahay addoonkiisii weeye ilaah la caabudo ma aha wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisii iyo risaaladiisii iyo fariintiisa kii waday weeye ma aha ruux been sheegaya sida yuhuudba ay sheegeen wa ruuxuhu ilaahay naftiisii weeyaan ilaahay naftiisii weeye maxaa laga wadaa naf ilaahay abuuray weeye ilaahay nafuu abuuray weeyaan wa kelimatuhu ilaahay kelimadiisii weeye alqaa uu ku tuuray haa iyada ilaa maryamo xaggeeda oo ilaahay kun haw buu ku yidhi markaasuu ahaaday maryamadii alcadaraa'i ee gashaantida ahayd albatuuli ee guurkaba isaga tagtay gabaraan nin qabin oo gashaanti ah oo aan weligeed la reeraysan oo waxa weeyaan aan ninba u galmoonin baa ilaahay ka keenay weliba guur aan rabin qaalat waxay tihi ummu salama fadaraba wuu garaacay annajaashiyu boqorkii najaashiyaha yadahu gacantiisu cala alardi dhulka ku dhuftay fa akhada wuxuu ka soo qaaday minhaa dhulkii cuudan qori uma qaala wuxuu yidhi maa cadaa ma tillaabsano oo ma dhaafsiisna ciise bnu maryama ciisihii ina maryama ahaa maa waxaa qulta aad tidhi haadaakan alcuuda ee qoriga ah qorigaasu isu la eeg yahay baad waxaad ciise ka sheegtayna ay sax u too isu keentay fatanaakharat waxaa hadashay oo buuftiri bataariqadu waa kuwe ammaanduliyaasha ciidanka soo ma aha xawlahu dhinacyadiisa xiina waqtigii qaala uu yidhi maa qaala wuxuu yidhi maxaa ka hadlinahaya oo la buuqbuuqahayaan beesaa jeebabka uga buuxda lacag baa la siiyey waa la soo dilay marka
markuu yiri wax allaala waxa nabi ciise ka sheegtay waa saxo waa abdullah iyo waa rasuuluhu iyo waa ruuxu iyo waa kalimatu oo maryama dhasho waa doon la dhalay bay sanka ka hadleen sanka tanaakharku waxa loo yaqaanaa oo culimadu ku sheegan waa sawtul anfi sawtka codka afka ka soo baxa weeyaan sawtka ka soo baxan ko waxan ka wada sanka marka way fuuq yiraahdeen faqala boqorkii wuxuu yiri wa inna khartum hadda doontaan bi buuqa oo sanka ka neefsada bi wallahi ilaahi baan ku dhaartay waa soo sheegay warintiis idhabu taga saxaabadii buu la hadlaya fa antum idinku suyumun bi ardi nabadgelyaad ku haysataan dhulkayga suyumun kuwa aaminahatiin bi ardi dhulkayga wasuyumuna al-aaminun wa kuwa aamina luqada xabashida suyum waxa loo yaqaan al-aaminun aamin baatihin dhulkayga meel alla meesha rabtaan ka mara man sabbakum qofka idin caaya oo dib idin geysta gurrima waxa weeyaan waa la deemeynaya bi waa deyn dhabaya wallahi usan ku badbaadayn bi man thumma man sabbakum gurrima thumma man sabbakum gurrima qofkii idin caaya ee wax idin geysta asaga eedaya oo waxa weeyaan lagu magdhabaya thumma man sabbakum gurrim fama uhibbu maj'li boqorkii baa hadlaya anna li aniga inuu ii sugnaado dayra dhahabin buur dahab dayr waa dahab waxa ka wada waa buur wal hal anni anuguna aadaytu an dhibo rajulan oo minkum idinka idin kamida والدير ديركنا باللسان الحبشة اللغة حبشيدة الجبل وبور بور ذهب إن هذا السيسان قليه إن قريش وقال ذا كوانا أكتيد اللغة والله أنا تشعلين بير ردوا عليا عليهما لبضان إرجي أو كتم مكة أو قريش ونمنك الراديني هداياهما هديوين كودي عليا فلا حاجة وحبا هلا يراهدو لنا أنغو نوغو سغنا بها أيضا سببتها هديدو وهديد الله كان إن لغو لالو شدد كان لغو ظلبيه سيدا أوغا نينك مانتا دقالكو كان أو كيرا الله يرو لعقتانا كادر جينيه نينكا نوايس هاينا أنا كخلدا لكن وحوي حانية تابسو أنا قد حيية ميل صوصار إنا ترى هذا إيقوها الله وعاد الله دول كان كتشيده هياي شب إيدي ظلمي وي أرنكاسو ظلمي وي أرنكاسو إن هذا حول اللغوسي الروح بني آدم ولالك يكوذ المدين إلهي الرسول كيسو وواحد رماء أرنكاسنا مبنانا عاقبة الظلم يقولون وواحد إسكا إلالي طيب وعلي يبير وحلال وحي هديت كينين هلو علي هديت دا إياه كمده أما اندولياش كويلسي بلاش لما بوف لهنا موقت حلال باقود عيسى وح الله لا وحي هيستين أيقنا ولا قوريتش كي بقر كنا ولا قوريتش فوالله إلهي بنقول دارتي بقر كبار الله ما أخذ مقاد الله ألا مني حقي الرشوة لالوش حين رد مركو يسوع علي دوش إذا ملكي بقرتو يده وفأخذ مركا أنقاط الرشوة لالوش فيه بقرتو يده حكا وضع وحوليا سراعي الله لان أذقبا وحان أقلي بقرتو يده هذا أرض الحبش أن بقرتو يده كاهي إلهي با إمكانيي أو يسور تقليي إلهي بقرتو يده مركو يسينا ينا لالوش كما قادم anuguna maanta boqortooyadaas aan haysto magangeliyada dadka isoo biday ee isoo hijrooday oo madluumiinta ah dhiibidooda walaana laaluush ku qaadanayn waa aqliyad aad u wanaagsan weey ilaahay baa caafimaad ku siiyay ilaahay baa xoolo ku siiyay ilaahay baa wanaag ku siiyay barwaaqo ku galay wax lagaaga qaatay ma jirto ha ku dhimin dadku ha ku dulmin madaxweynaha noqotay xilkan ilaahay uu ku makaniyay uga faa'iideysa khayrka iyo wanaaga jihada saxda ah wama ataa'a ilaahi mayelsin الناس ضدك في دحديده أو فوطيعه مركان وناطيع فيه دحديس وحليه ضد كان أركيسيد وإيوده جانسيه ويقدم بيان يا إيخص بي الله مر هدي دعدي إلهي ضد كان إنه إيخص بي وبقرتو يده اعتراف سيهين والله أنا الظلم أنقلي قل يكلي تكوي لأنه رجنا نكدي بين به قالت وحيتي فخرج لبدي إن ويبحن وعمر يا عبد الله من عنده بقر كأكتي سيكبحين مقبوحين حاليهم كوال عنباريو اللحميي مردودا حالوية مثل علي عليهما ضشوضة ما وحي جاء أي لي مادين به ما قوها هديديو وحي وي مادين وتشدوينها وأقمنا وانقاني عنده بقر كأكتي بخير دار إيا وطن كيو خير بدنا مع خير جار درس متك خير بدنا لشرنكي
qaalat waxay tihi fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye innaa annagu calaa daalika arrinkaasaan ku sugnayn iyo barwaaqadaas id waqtigaasaa nasala waxaa ku soo degay bihi boqorkii yacni waxay ula jeedaa man ruux yunaasicuhu ku qabsanaya fii mulkihi boqortooyadii saan u barwaaqaysnayn oo carrisamaad iyo waxa weyn barwaaqo ugu jirnay waxaa soo baxay mucaarad baa waddankii ka dilaacay nin kalaa yimid oo leh anna boqor baan oo xilkii ku qabsaday qaalat waxay tidhi fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa calimnaa ma ogin xasinnaa inaan murugoonnay qatu weligayo ashadda wax ka darnaansho xasinnaa inaan murugoonnay qatu weligayo kaana waxa ahaa ashadda mid ka darnaansho badan min xusnin murugtii xasinnaahu aan murugoonnay cinda daalika markaa agtiis murugta maalinkaa aan murugoonnay weligaya nama soo marin bay tiri markaan aragnay boqorkii oo lagu haysto xukunka waa boqor gaalay garo laakiin ammaan bay ku heleen agtiisa takhawufan cabsi aan ka baqayno an yadhara inuu guulaysto daalika ninkaa munaasicahoo xilka ku haysta cala najaashiyi najaashi inuu ka guulaysto oo fa ya'tiya uu yimaado rajulun nin laa yacrifu aan garanayn min xaqina annaga muslimiinta xaqan waddankan ku leenahay maa wixii kaana uu ahaa annajaashiyu najaashi yacrifu mid garanaya minhu xaggiis waxay leedahay waxaa wax walba nooga darnaa oo aad noo murugeliya cabsi ah waxaana gashay ninkan haddii nin kale intuu xilkiiba ku qabsaday waaba ku haystaayo uu ka guulaysto soo ma dhici karta ninkaanu inuu dib idiin celiyo waxa aad mudan tihiin iyo waxa aad soo marteen iyo waxaad waddanka ku joogtaan ninaan midna garanayn oo danaynan idiin yimaado aad baan ugu murugoonnay tiri fa wallahi ilahi baan ku dhaartay maa calimnaa ma ogi xasinnaa inaan murugoonnay qatu weligayo xasinkaasoo kaana ahaa ashadda midka laga darnaasha badan yahay min xusnin murug oo xasinnahu aan murugoonnay cinda daalika markaa agtiisa takhawufan cabsi aan ka baqayno an yadhara min an yadhara inuu guulaysto daalika kaasi cala najaashiyi najaashi oo fa ya'tiya uu yimaado rajulu ninkaasoo laa yacrifu aan garanayn min xaqina annaga muslimiinta xaqina aan wax ka garanayn maa wixii kaana uu ahaa annajaashiyu najaashi yacrifu mid garanaya minhu xaggiisa qaalat waxay tidhi wasaara najaashiyu najaashi wuu socday halkaa waxaad ka dareentay dadkaani waa dad muslimiin ah boqorkaana waa boqor gaal ah kan ku haystana waa gaal kale dalka iyo deegaankana dowlad gaalaha ka jirto kiristaan ah waxay ku faraxsan yihiin inuu boqorkaani sii baaqi ahaado waxay aad uga murugsan yihiin mid kale inuu yimaado ma bannaan taha maantayto intaasoo kale la sameeyo maxaa diidaya oo maanica hadda waddan baan joognaa aqliyay ku yihiin dadka muslimiintaasoo soo ma haddii nin gaalihi maantayto muslimiinta u maslaxa badan yahay ousan diinteenna inugu faragashanaynin ousan masaajideenna inugu faragashanaynin oo midnimadeenna iyo kobaceenna uusan wax dhiba u arkaynin oo ruux iska caadiyo musaalima uu yahay iyo mid markuu saa xilka u qabsado muslimiinta gumaadaya labadaasi maanta hadday tartamaan kan maslaxadeennu ku jirto waa inaynu dooranno waa inaynu jeclaanno inuu asagu guulaysto maxaad u jeclaanaysaa laakiin lidiinihi ma aha limabda'ihi ma aha danta aynagu inoogu jirta danteennaa ku jirta wax mushkila male arrinkaas saxaabadii nebi maxamed waa kuwaan gaalaad tihiin lama odhan gaalana ma ah dhibkii haystay baad ogeyd maantana wanaag bay ku nool yihiin diintooday xor u yihiin boqorkii waddanka ugu sarreeyaa diintii loo sharxa nebiga iyagu waasaan nebi ciise waasaan waxaanaan ku dhaqmi jirnay waxaana ilaahay noo keenay diintoodii bay saa xor ugu yihiin qaalat waxay tihi wasaara wuu socday annajaashiyu boqorkii najaashi ahaa wa baynahumaa labada boqor oo xilalka isku haysta dhexdoodana waxaa ku sugan curdu niili webiga niil ballarkiisaa u dhexeeya webigaasaa kala bara qaalat waxay tihi faqaala asxaabu rasuulillaahi rasuulkii alle asxaabtiisi baa waxay yidhaahdeen man ruuxebaa rajulu nin ah ninkaasoo yakhruju baxaya xataa yaxdura ilaa uu goobjoog noqdoo xaadiro waqcata alqowmi qolada dagaalkooda labadii boqor dagaal bay isku bilaabeen yaa dagaalka goobjoog noqonaya uma ya'tiinaa noola imaanaya bilkhabari warkoo arrinka soo indhaindhaynaya qaalat waxay tihi faqaala zubayr ibnulcawaam baa wuxuu yidhi aniga waxaad dareemaysaa inuu ka mid yahay dadkii horay ilahay dartii ugu islaamay qaalat waxay tihi wa kaana zubayr wuxuu ahaa min axdai alqowmi dadka ninka ugu yar sinan xagga da'da qaalat waxay tihi fanafakuu lahu qirbatan fanafakuu waxay u gunteen oo u buufiyeen lahu asaga ay u sameeyeen qirbatan sibraar aashuun bay u sameeyeen fajacala wuxuu ka yeelay haa iyada fii sadrihi wax yar buu ahay halkaanu xabadka gashada uma sabaxa wuu dabaashay
عليها بدد وبيجا دوشيس وبيجا النيل بأود حي صماهن عليها قربدي دوشيدي أيو كضباشي حتى خرج إلى وكبحي من ناحية النيل وبيجا النيل دين عيسى التي تصو بها أيضا يكون سجنتهاي ملتقى القوم يقوليهم ماشي كل ميان وكده قال ميان بهاش أصافك أنت الله حري أو دوشيدا فلوسا وجود بارنا إلى وبيجا كبحي ثم انطلق وتجي حتى حضرهم إلى أصوح حاضري قالت وحي تري ودعونا الله يان أبرنا تعالى سرية للنجاشي بقولك النجاشي هو نقال جماعة كله تجيه محي وجود عينيان بالظهور كجوليس شو على عدوه سو كجوليسته يوتمكيني مكان شو له أسجى إلهين ومكانيو في بلاده الكيس إله نك جوش السي إله عدوه سجبي محي كربان أسجى الحق وذو قرنا يا وإلى لنا ياه كان كلتنا وحيه لما يقان واستوثق وسقنادي عليه بقر كيدوش وحا أسقنادي أمر الحبشة حبشة أرنكيدي أسقوا أسقنادي مركز يقوليستي استوثق معناه وحوي استقر واجتمعوا على طاعته وحي اسكوا وافقين إن أسقى له قانسم فكنا وحانهين عنده أكتك وكسغان في خير منزل قري كان أبو خير بدن معناها markii laga hadlayo nisbada ma aha guriga nabi maxamed iyo gurigan inuu gurigan fiican yahay ma ka hadlayso ee waxa ka hadlaysa wanaag bay ku heleen gurigan hatta qadimna ila an usoo galnay ala rasuulillahi rasuulka ala dushi sallallahu alayhi wasallam wal hal huwa rasuulkuna bi makkah tamako ku sugan yahay oo de hijradii labaad saasi ku dhacday nabigu makkah ku sugan ayaan markaa u nimid ka bacdina way hijroodeen waxay aadeen madiino tayib xadiidkan waxa wariyay imaam an-nasa'i ahmadna wuu wariyay شيخ ناصر رأسل كيس قيب كمدا صحيحه كوكينا صدق كون بقول يسقاشن لمرك رقمك وهو حديث كنوا فايدين إياه شوف قضاء يدمرين النبي صلى الله عليه وسلم سقى صحابته وش يقول وحو يري أرض أرض الحبش هذا مركي الله دبي وإله درت اللو عذابي بقر باتشوغان أكتي صدقك الغضل من وهو حديث كنوا فايدين يا وحل لو يقن فقه الحوار قابك الله نقاشه وقفك مخالف كاقا الله قنعيه وقفك الظلم كوها يا وحويان لوله الله أما هذي عد إذين دحيس عد الله وشرحه فقه النزاهة دور صنانته أيضا حديث كوينا بريا وهو حديث كوينا بريا إلهي الدين تسمر كارتدد إن دقوقا عسو ويرتد إن استعمال شيء اللي يقانا حكمة وهو حديث كوينا تسينا يقفك علماء هو قويها كهو مسلم كاهي إنه نقضه قف واقعه وواقعه وكنه ليه وحكتر الدون كالله سبحانه وتعالى كان قادكر ما هالشانقات كأنان كوضه ماشي لو تشديه بينه إسكت سمايو أو الغش قيس ما وحنا كهالله لكن وحوي ظروفته كحيرا إنه دريمي كره هليس كو إيمانس إنه دريمي كره وحديث كنوا فايدين يا أو أنك قادنا امتحان كان لسومري صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودين إله الأرض ما هدت كانوا ضد وحويان ضد الحيصة يا ما هدت كان ضد قالوا أسوه جرودي ما هدت كاني dad waxa weeyaan wadankooda cadaadis iska xogaa meel dhaxada soo ka jiray ka soo tageen dar ilaahay baa loo cadaabo oo loo dhibay oo la dulmiyo oo diintoodii waxa weyn laga fidinayn gaara wuxuu xadiidku inoo faa'iideynaya si kastoo imtixaanku kugu adkaado inaad mar mabda'aga ka tanaasulin makaan la wada joogay waa la imtixaamay waa laga qoost ardul xabash bay yimaadeen wax walba la isku dayay xoolaa lagu bixiyay rag khataraha loo soo diray waa laga qoostay waliga inaad noqoto qof mabda'a ilaahay ku dhagan hadaad ku dhimatidna waa ciziya sharaf هدات كنا لاتنا وعزية شرف هدات كل متنا والنحريس يجنو حديث كوحي نو فايدين يا وانك قاضنا هنا وحياله إن تصنع يكمل الرماها النوع عاصو كلاه مركي مسلمين تسوى جهة وربا خاصة كوا أقليات كأسان وريو سو شيغني إني كمدوا بان حلقة عن كان نقدان قول يدير كان نقدان وحيالها قنقناف كا يفامل كا يقويسس كا يقبائل كا يوحا ودي حيان لفيرين مثلا هذا عام يومضا مدن ماذا يظل فيريو أيضا حديث كونوا فايدين حديث كون حنا تسنية عدالة الشيء اللي هذا قيمة أوليه بقر قال وأن عرب هين أفريكان فالنبي الله محمد وحوليه صلى الله عليه وسلم أرضو بقر كاس آذى أكتي صدتك القوم الظلمية ما أنت تعالب الإسلام دتك هذي بقى حية يا قحنا يا الدولة دي ولا اللين كوا قار خذ وحب اللي قد بتجي ماشي آذين خاشوق ماشي الوجه التركي ولا قد بتجي سماه meelahaas looga daba tagay waa la ugaarsan waa la laynaya wadankii way joogi laayihiin waa la caburin xurriyada laga qaadin ilaahay amarkii waxa dhanka kale u gacan haadinaya kuwii gaalada ahaa iyo hay'ado waliba ayagu kristaan oo dadkii waxa weeyaan u faragodaya oo laga yaabo inay rabaan dadka inay gaalaysiiyaan waa muhiim dawladaha muslimiinta ah hawsha inay ka waantoobaan inay cadaaladda u soo noqdaan ibnu taymiya wuxuu leeyahay waxa la wariyaa in la yiri
dowladda caadilada ah oo shacabkeeda cadaaladda waxa laga wadaa shacabkeeda u garsoorta dowladnimadeedu waa sii jirtaa walow gaaladba ha noqotee dowladda shacabkeeda dulmidana ma sii jirto walow muslimadba ha noqotee maxaa caalamul islaami maanta qarribay maxaa mudaharaadyada ku qarribay maxaa dulliga baday khayraadkoodii iyo hantidoodii loola wareegay iyo shidaalkoodii iyo macdantoodii shacabkoodii bay dulmiyeen markaasi waxay u qoordhiibteen cid kaleeto halkaasaa dulligu ka haystaa xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa aan ka qaadanaynaa dadka muslimiinta ahi in mar walba lala jeclaado guusha iyo wanaag mar walba inaad guul iyo wanaag jeclaatid walaalkaaga guushiisana aad jeclaatid alqisatu الثالثة والستون qisada lixdan iyo saddexaad qisada raqamkaasi waa khaldan yahay sababtoo ah qisada hadda aan dhammayno jacfar baa waxay ahayd alqisatu الثالثة والستون lixdan iyo saddex taasa ahayd tana lixdan iyo saddex baa ku qoran tani lixdan iyo saddex maaha waa lixdan iyo afar waa khata القصة الرابعة مركوية قصة أفراد الرابعة أفراد والستون لحدا يا أفراد فضل أم سليم صحابية أم سليم لو يقان رضي الله عنها الله كره النقطة فضل هذا وصحابية قصة هذا صار دفنتي ورنيسو جعفر يا أفتهني ماذا سكور رميس أم سلمة يا رسولك حاسكيس تنوى أم سليم أبو طلحة قبه أنس بن مالك هو يدوي عن أنس وحى لغوري ابن مالك قال وحي خطب وضاني أبو طلحة وحو صودوني أم سليم أيو صودوني مركو صودوني أنا وقال سو قال وقاس قال أيا صودوني أم سليم أو صحابية waxaa dareemaysaa qofku hadduu wanaagsan yahay qof walba jecel xataa gaalku waa hunguriyeen oo faasuq waa hunguriyeen hadda qof ciyaal suuq hadda xogaa is waraysataan iska jiri ah waxa laga yaabaa inuu kala sheekho gabar wadaad xijaaban ay soo raadi oo aduguba wadaad asturan ma tiide oo diinta ilaahay ku fiicane wadaada ay sheegaysa maxaad ku faraysaa qof walba wuxuu raadinayaa qof nadiif ah oo wanaagsan oo nasiihu raadinaya marka asagoo gaal wuxuu isu soo sharaxay inuu nolosha la qaybsado la wadaago guursado Sulaym oo saxaabiyad ah laakiin waxaad aad u fiirsataa qaabka ay ninkaas waxa weeyaan gabadhaas ula dhaqantay faqaalat waxay tiri wallahi ilaahay baan ku dhaartay ma mithluka adoo kale ya aba talhata abu talhu yuradu lama celiyo nin la celin kara ma tihid bay tiri nin la diidi kara ma tihid hadalkaagana nin yac la oran kara ma tihid walaakinaka adu rajulun baa kaafirun gaal ah runtay u sheegtay gal baa tahay tiri wa ana anuguna imra'atun gabar baan ahay qof dumar oo muslimad ah ولا يحل إما بنانا لي أنا أن أتزوجك إن أنكو جورسده دين تيدان قبل هذا مقالة وحال إيش هي قبل الصومالي والرجال على جورسدي ساسي شيء مركب جورس جور معها واحد جورو ماشي كم تشرت قبل مسلمة هنين قال ما جورسان كره حرام واي سيدا سلمة إيش يجيسو باصح لكن وصاحب على أوران كره وصاحبين زينو كل شوجا وحكيت شرا مركب لما أركيني جورسدا قبل الصومالي وحال إيش يجي لبا المود إنتون إنكسر علي hadda ileeda marka la sukayo meheriyo aroos aan loo dhigo dhaqanka gaalada waxa weeyaan wadanka waliba aan joogno in la istijaabiyo moogta ninka gaalka islaamada gaalo la saaxiibaya markuu ogaada inay dhalayso isan ma dhalays ahayn hal iyo laba ay dhasho markaas waxa la leeyahay sukayo meheriyo waliba waxa la ii sheega hadii markaas ayada uu yiraahdo ku mehersan mahayo waa kuma rabo ilmihi ay dhashay wacal buu noqonaya ayagu wacalkaas u yaqaana laba sano dhowr sano soo wada joogeen ilmay u dhashay marka ka bacdi haduu yiraahdo kuuma qanacsani ilmihi uu calay noqonayaan hadii laakiin kaniisada intay tagaan ay yiraahdaan waa isu keen xalaalayna xalaal dhashay noqonaya bali agtooda saasi isu haystaan marka waxay tir marka ima ka banaana laakiin in la diidi kara ma tihid waayahay su'aasha imaan kartaa waxa weeye hadii nin la diidi kara aanan ahayn diintaaduna aysan qabin inaan ku guursado sidee bay suurtagal ku noqon kartaa inaan ku guursado ayada u sheegto waxay tiri fa in tuslim hadad islaamtid فذاك كاسا مهري مهركيغا وما اسالك كويديسن ما غيره اسغا waxaan ahayn wax ilaahay abuurto kala aan ku wixray lama arko ma islaami kartaa waan ku guursanaya waa waliika guurinaya waxay culimadu yiraahdaan waa inoo imaan doonta aakhirka xadiidkee gabar muslimad oo ka meher fiican waligeed lama arag sababtu waxa weey gabdhaha kala meherkoodu manfac dunyawi ay siistaano lacag laga yaabo inay ama guriga ku dhisato ama hooyadeedii aabaheed u dirsato ama iyadoo ay ka shaqaysato laakiin gabadhan meher waxay ka dhigatay ugaas beeleed آخرتي أدون كيسب إني بدبادس الله جاي بعصون أمد بدن إنه كفر يوصل إسلامي روح دم بآخرتي أدون كيسب بدبادس فكان وحوها ذلك عرن كاسم مهرها مهر كذا يوها قال ثابت بوحي حديث كورنا فما سمعت ممقل بامرأة قفت مرقط ولقى وكانت هيد أكرم متك شرف بدن مهرا حق مهرك من سليم الإسلام إسلام كالحديث
intaan islaamka dhex joognay wali dhagahaygu ma yeeshan maqal dhaayahayguna ma arag gabadha gabar ka meher fiican fadakhala biha wula aqalgalay fadakhala biha maxaa ka horeyda wuu islaamay wula aqalgalay fawaladat way u dhashay lahu asagoo caruur bay u dhashay caruur ayay u dhashay xadiidkan marka nasaa'i baa wariyay imaamu nasaa'i baa wariyay kii horena axmed iyo ibnu khusayma wariyay kii hore waxa laga yaabaa inaan iri axmed baa wariyay kii hore ibnu khusayma iyo axmed baa wariyay kana nasaa'i baa wariyay asagana axmedna waxbuu ka wariyay laftirkiisa alqisatu araabicatu baa qoran laakiin raabicatu maadaama tii hore soo niri tii hore afar ahayd waa alqisatu khaamisatu wasituun qisada lixdan iyo shanaad fadlu abi saciidin alkhudriy saxaabiga loo yaqaano abu saciid alkhudri fadligiisa weeye iyo wacilmuhu saxaabigaas inuu ahaa aqoonyahan aqoontiisa can abi saayib waxaa laga wariyay mawlaa hishaam ibni zuhrata ahaa annahu asagu dakhala wuxuu usoo galay calaa abi saciidin alkhudriy abu saciid alkhudri buu usoo galay fii beytihi gurigii qaala wuxuu yidhi abu saayib fawajadtuhu waan helay yusallii asagoo tukanaya gurigiisii markaan soo galay asagoo tukanayaan la soo kulmay buu fajalastu waan fadhiistay antadiruhu xaala aan sugayo xataa yaqdiya ilaa uu ka guta salaatahu salaadiisa intuu salaadiisa ka gudanayay sii sug baan iriyo waa fadhiistay buu intii aan fadhiyey fa samictu waxaan maqlay taxriikan dhaqdhaqaaq fii caraajiina laama iyo geeda meeshaana dhexdooda baan waxaan ka maqlay buu laamihii dhaqdhaqaaq baan dareemay taxarruk fii naaxiyati albeyti guriga dhinaciisa faltafatu waan dhugtoo milicsaday buu yidhi fa idaa waaba iyadoo xayatun abeesa ah waxa meesha laamaha dhaqdhaqaajinayoo shanqaraya waaba abeeso fa wahabtu waan booday buu liaqtulaha saan u dilo baan ku booday buu abu saciidna salaaddii buu ku jiraa dagaal gundaha uu ka dhashaaba anna igu dhacday buu fa ashaara wuu ii ishaaray ilaya xaggayga an ijlis fariiso isagoo salaaddiisa ku jira ayuu iiu yidhi fariiso fajalastu waan fariistay dhaqdhaqaaqa noocaas oo kale ahoo salaada dhexdeeda aad samaysid adoo salaada ku jira qof kaa horreeya haddaad ku tiraahdi saah ama mid kicilaha aad tiraahdi bax ama mid waxaad tiraahdi fariiso ama ilmo yara aad u suljaawisid oo aad leedahay armu dabya wax ku dhacaa salaadaadii waxba noqon maayaan sidaa awgeed u fiirso fa ashaara ilaya an ijlis soo ishaaray dhaqaaq maaha wax dhiba ma leh fajalastu falama insarafa markuu salaaddii ka baxay abu saciid ashaara wuxuu farta ku miiqay buu yidhi ilaa beytin guri oo fi daari guriga ku dhex sugnaa qol ka mida guryihii meesha ka dhisnaa guri ka miduu farta ku taagay qol ka mida guryihii meesha ka dhisnaa faqaala wuxuu yidhi ataraa ma u jeedaa haadaa kan albeyta ee guriga ah faqultu waxaa ihi nacam haa waa u jeedaa qaala wuxuu yidhi kaana fiihi dhexdiisa waxaa ku sugnaa fatan wiil dhallinyaro aho minaa annaga naga tirsan ansaar xadiidu cahdin wiilkaasoo aroosnimadii ee waqtigiisu uu dhow yahay bicursin aroos markaasuu aroos gala qaala wuxuu yidhi fakharajnaa waan baxnay maca rasuulilaahi rasuulkii alla la jirankii ila alkhandaqi dagaalkii khandaq xaggi fa kaana daalika wuxuu ahaa kaasi alfataa ee wiilka ah fa kaana wuxuu ahaa daalika ka alfataa ee wiilka ah yasta'dinu mid weydiista idan rasuulallaahi rasuulka alla sala alla alayhi wasalama biansaafi nahaari maalinka bartankeedii fa yarjicu wuu noqon jiray ilaa ahlihi caruusadiisii buu u noqon jiray fasta'danahu wuu idan weydiistay yowman maalin nebigu maalin idan weydiisto wuxuu nebi allow dee waa u jeedaa hawsha laakiin waan soo jiraynayaa fasax caruusadii baan aadayaa fa qaala wuxuu ku yidhi rasuulullaahi rasuulka alla lahu wiilkii khud qaado calayka korkaaga silaaxaka hubkaaga qaada biyo hubla'aan ha tegi fa innii anugu akhshaa waxaan kaaga baqayaa calayka dushaada quraydata qolyaha qurayda ayaan kaaga baqayaa yuhuuddaahe is-ilaaliyo taxadaroo hubkaaga wado fa akhada wuu qaatay alrajulu ninkii silaaxahu hubkii uma rajaca wuu noqdo gurigiisiibu aaday fa idaa waaba iyadoo imra'atuhu xaaskiisii bayna albaabayni albaabka dhexdiisa ay laba albaab dhexdooda ay taagan tahay laba albaab wuxuu ula jeedaa albaabka halkaas xaggana qayb baa ka xigta laaban xaggana qayb baa ka xigta soo ma jeedaan bartaa albaabka bartankiisahay taagneed camal weeye meesha iyadoo taagan buu u yimi qaa'imatan xaalay tahay mid taagan fa ahwaa wuu ku taagay ilayha xaggeeda arrumxa warankii liyadcana suu u durahaa iyada bihi waranka wa asaabathu waxaa ku dhacday khayratun masayr odaygu wuu masayra wuxuu is yidhi islaamtu albaabka waxay la taagan tahay gurigaan gudihiisaan rabay inaan ugu tagee balaayagii meesha ku sugaysaaba saaxiibba iyo waxbay samaysatay marka masayr baa inta qaaday buu inta masayrkii ka tambadiyey warankiiba ula baxay reer qurayda isaga ilaali islaantiisa faqaalat waxay ku tiri lahu asaga ukfuf naga laab naga reeb calayka dushaada rumxaka warankaaga wadkhul gal
البيت غريغا حتى تنظر ساد ويكتيد ما الذي كي محوي هي أخرجني إسوا صاري هدقدقي أنت هذا دقدقي غريغا قال هرت فيري غريغا وحي قصوا صاري فدخل وقري فإذا وابا سوق بحية أبيسا كسوغا عظيمة وين أبيسا وين وماشي تشوكتو تجيب منضوية حالي تهميد اسكو دوبتي على الفراش فراشك كوغشي ريركو أراسكو كو أهابا أبيسا وينك كبضتا شيفتبا واسكو دوبتي فأهوى وكشيشو وكو بي إليها حقا بالرمح ورنك فانتظم واسكو تحي ها أيدي به وحاويان ورنكي بقى يدي دق يريو قلي ثم خرج وصبح ولا صبح فركزه وطلالي في الدار غوري دخدي سوسا غلي عيل بو قبا وخي اسلام بهلك ما انت تكابه ديلي لهابا بهلكي markuu ayadii galay ayuu ku jugay wuxuu dhulka kula tiimbo fadarabat wa isku soo laabtay عليه dushiisa abeesadi fama yudra lama ogeyn ayuhuma koodeba kana aha asra'a mid degdeg badan موتا حق جيرده الحية أبيسدي مياه أميل فتاة مسويلك لبضي بقى إسلامك ونفتك بحدا ويلك أنت إسكسوا قنينتي إسكسوا لا تقصي سوي قنينتي ويلكون أيضا ورنكي كومودي لبضوا دي كي جيري كهري لك الجرام ما يلودي بمرك ونفتك بحدا طيب قال وحيري أبو سعيد فجئنا وان أنمد إلى رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم فذكرنا وان أشيغن ذلك أرنكاس له أصغى وقلنا وحن كنري ادعو الله الله نوبري يحييه هانوسون ولا يلنا عنك نينك نينا جعل الله يبو هابيسانا نغدي شيء الهي نبي يسيو نبي الله تهي الهي انو نوسون ولا يويل كان الله أبري فقال النبي وحير استغفروا تنبي دافو الضلب لاخيكم لصاحبكم صاحبك انك سواد انت قف انت سو نقون ما قيامه كهوره الهي دمي دافو ويديب halka waxaad ka faa'iideysan qof dhintay عمل أوصل أسقو شقيسان إني صورة قلتها إنه كو انتفاعه ما أوصل شقيسان حقيقة لقى قادم مسلمين تبع النبي والله الله يوحي لنك إله الدم داف ودي نك نوامي حدان دم داف ضلب كان لو دعيني وحقود ترين وصن قبرك جوديس وحقود ترين ميون النبي ورانها قدام داف ضلب ومايا جنازة ماله بالمساج كلا ينوجو كانوا وإنه كنت كانوا وحن وجودت كاننا إن أن أشفع عقادنا إله شنيه وها عذاب وقبرك هو صعب عندنا صومه أي نجو مركان ميت لو كنتوا كرينا ميتكم عملوا أي شقيست بينهم سدد عادي وكم مدح بنان بينهم تتكم مدح بنان بينهم عمل وصنقف قصة ما يسان الدون كان وادع كرتا إنه كو انتفاعه آخرنا وادع كرتا إنه كو انتفاعه وحيس ويدين مدة وقال ليس للإنسان إلا ما سعى حقي لكينية إنسان كوحو شقيست ما هنا وح كلام ماله وصح يعني إسديد ميسو آيات داس وحي كهلا يسا وح هذا حق ولا هذا هو محا وح شقيست لكن وحي قفك لو كوغو تفضل إله أن حريسي إله دمجي سرافيو تماذا شقيسنا وإحسان قفك أنو كوسمي قبولكنا إلهي بويا لأنه كاغبالي إن كليته ثم قال النبي وحيري إن بالمدينة مدينة وحاكسوا جنا جن كاسو قد أسلموا إسلامي جن مسلمين بمقالة مدينة لتشوغة جن كنا وحي ليه تشكل وحي ليراهدوه مر وحو iska dhigaya laga yaabo xooro mar bisad bu iska dhigi kara mar abeeso iska dhigi kara tashakul bu sameeya fa ida goorti raaytum ad aragtaan minhum xaqooda shay guriga abeesa iyo dad wax noocaas ku aragtaan fa aadinuhu abhiya 3 ayyam 3 maalmood ya allah halin marka abeesa guriga ku dhax fadhida baad waxa leedahay allah duuyaho jin muslima tahay guriga ay dhaaf maanta hadaa tiraahdo biri ku aragtid allah duuyaha ay dhaaf bari dambe hadaad aragtid allah duuyaha idaaf wuxuu yiri fa in badaa haduu idin muuqda lakum idinka bacda dalika marka ka bacdi saddexdii maalmood markaad abiseen haduu aan babix waayo ay idin lana qumanaata inaad dishaan faqtuluhu dila fa inma huwa asagu shaytaan weeyani waxa abeesada meesha fadhiya jin islaamay maahe waa shaytaan iska dhiciya xadiidkan imaamu muslim baa wariyay fi saxiixihi الإمام النووي حديث كان مركو شرح يوحي معناه حديث كان وحوي دقيتان كي أدو دقيتان أبي سوين كقريها كتير الله دويها إضافة كتير هدو كتير وايو وحاد أغانيسا وحيالها قرية عمرو أو شينك مسلمين تا إنو صنعين وحميشا كتير أبي سيسك عادي يقلتش معها شين إسلامين معها مركا وحا قرية كتير وشيطان مرها دو شيطان يهي
dilkiisana wax dambi idinka soo gaari maayay dilka aadisheena macnaheedu ma noqonayo inuu jinki inta waxa jira abeesooyinku midna waa bahashan carajiifta oo xamaarato aan lagu halahayn oo dilaaga ah oo nabigu yiri meel walba lagu dilo midna waa mid Soomaalidu yiraahdaan habar jin oo amasada abeesadan abeesacagaleed loo yaqaan waxaan garanayaa iyadoo la yiraahdo abeesacagaleedu waa habar jin hadaa taabatay miskaha ku burburahaya miskah ma aqaan marka jinku meeshu ku guursaday meel ku waayeen midna garan maayo munaasabadu marka waxa weeye xayawaan caadi ah qalajis iyo baranbara iyo soo guro maalin walba kuma aragtaan waxa ma aysan galabsan iska saar haddii waxaad ka shakiday aragto isla ruuxan suurtagal ma jin ma yahay armu yahay oo abees iska dhigay iska abi haddii uu wax ku qaadan waayo waa shaytaan dilka aadishaana hor waran isku soo kaylaaba sidii saxaabigii marka dhimare woosan sootan saxaabiga dishay saxaabiga kan dilay deemuusan abhiin oo jin muslim aha jin muslima oo abees iska soo dhigay oo uusan hawshiisa hubsan ayuu ahay sidaas uu ninka ku dilay xadiidku marka wuxuu ina tusinayaa kaadsiyo cajiibka uu leeyahay wax fiican uu yahay saxaabiga ninkan markuu damcay isla markiiba inuu degdego dilo oo kaadibi Abu Saciid fadligiisana xadiidku dhanka waa inaga tusinaya aqoonyahan wax garanayo adilla ku qanciyay ninkii inuu yahay ayana xadiidku waa inoo faa'iideeyay abeesooyinka noocaas oo jinka isu ekaysiyo qaar islaameen sida nabigu sheegay miyaayo Madiina khaas ku yihiin meel walba waa joogan waa mas'ala khilaafiya culimada qaar baa waxay leeyihiin Madiina khaas ku yihiin abeesadii kale aad guriga ku aragtid iska dhici waxaad isaga dhicin kartid isaga dhici qolyana waxay leeyihiin mar walba waa suurtagal marka waa mas'ala khilaafiya mas'aladaasi tamat risalatu waa dhamaystirantay wa kana al-faraqu minha dhamaynta la dhameeyo qoraalkeeduna wuxuu leeyahay saadisati min shahri ramadaan bishii ramadaan ee hadayna dhaaftay lixdeedii baa la dhameeyay عام 440 بعد 1000 من الهجرة كن يا أفر بقول يا أفرتن هجرة ومركي أهيد والنبوية أو وافقسن لبضا كن يا سغالية طبانك بشي شناد كوبية طبان كيدي سبحانك إله نزهني ذا أيان نزهنتها اللهم الله يو وبحمدك ما هذا للاقبه وتبارك وحا سرمري أو خير كيسو بطي اسمك مقعاقا وتعالى وتبارك وحا خير كيسو بطي اسمك مقعاقا وتعالى وحا سري جدك شرفت هذا ولا إله معبود حق لو عبد مجر غيرك أدينا هين وصلى الله الله أمانه وسلم الله بدبادي وبارك خير كيس الله بديو على رسولنا رسولك ندوشي صلى الله عليه وسلم الهادي إدتك هنونين البشير إدك بشارين يودتك خيرك وبشارين وعلى آله نبي أهل كيسنا أنت وكلا الله سيئ وأصحابه أصحابتي سأجمعين دمان وآخر دعوانا بريدنا ماشي قدام بيسانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين رسالة مركال كاسينو ويقته وحان خلدنا الله نغا دافو وحان توسينينا ميزانك حسناتك الله نوغلي إذن كان إلهي سبحانه وتعالى إذن كو أنفعو إن الكاسينو ويقته إن شاء الله تعالى وبدان تهي ولي قيب كلو عن الدابعين باشرة بقول حبان قارسية قصص كالصحابة ده مركا إن شاء الله تعالى طابع عدد ضمبيتو بان بقول كباسور لما يستريا تي زيد وصلاة عن صور شيقنين عن كحد في دونه تي بخاري أن كدير دونا إن شاء الله تعالى بالمناسبة زيد ما دابوا قصص الصحابة أنه كهل لأن زيد بن عمرو الصحابي ما هين لكن ما دابوا من أهل التوحيد أها نبي أنا يهري سوء أركان صلى الله عليه وسلم فعلماء غيب كم من سيد البخاري وكرمركم فضائش كهل صحابة إيو أنصار بقصة دحضري مركالك سنوجه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين